dad qaxooti oo ka soo jeeda qoobiyada Oromada isla markaasina ka soo barakacay magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo deegaanada hoos yimaada ayaa soo gaaray magaalada Wajaale ee ku taala xuduudda u dhaxaysa Somaliland iyo Itoobiya dhinaceega Somaliland dadkani oo isugu jiray dad waayeela kadib markii ay rabshado ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kaasi oo u dhaxeeya dawladda federaalka Itoobiya iyo kiilka shanaad isla markaasina ay ka soo carareen dagaalada halkaasi ka socda dadkani oo isugu jiray dad waayeela iyo dumar sita caruur aad u yar yar waxa weeye waxa marka hore baa ku diraya xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo amniga xuduudaha dhammaan badda koobaad waxa weeyaan dadkan waa dad Itoobiyana waa dad soo qaxay waxay ka yimaadeen Jigjiga iyo Wajaale daanteeda xagga Itoobiya waa dadkii ganacsatadii ee qaybina waxa weeyaan halka ka ganacsanaysa ganacsigeedu aad u fududaa waxaan u diray hadda xukuumadda Somaliland dadkan oo dad dan yar oo macluulaya ku jiraan inaan ilaa xilligii shalay ay arrintu aan wax la soo gaadhin waxa kale wax nagala qabtay amniga taliyaha saldhigga booliska tag Wajaale oo ugu mahadcelinayno waxa weeyaan waxaan hadda u diraynaa baaq Jamhuuriyadda Somaliland in hotel ganacsi oo central ma hayn karto Somaliland ma mudan hayn karto waxaan leenahay Somaliland mar labaad iyo mar saddexaad ummadan ha qaabashaan leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim جولين oromo daawnooti Wajaale keessatti rabshaan hedduu dhageessee jirti kanaafuu lubbuu teenya irraan tana qeeroo abdii baruu tan biyyattii keessatti qaleessaas taatee arraas balmaa jirtu yeroon nurra geessennee manaan baanee arraan tan akka malee manaa baanee asitti haala malee irra geenyee jirra kanaafuu ol baasaa Lammaa Magarsaatii fi Abiyyu Ahmadiis walumaanuu waliigala Oromiyaa guututti namoota asitti akkana rakkachaa jiru kana ayaan waxayna kari waayeen awoodda maartay dariiqa ay ku mari lahaayeen marka hooyooyinkii ciyaalkii waxa dhan bay isku wada jiraan kuwa la soo laayay Jigjiga ka soo carareen way jiraan toona tumani kuno akay qadeenya kan yajima saamani akati galus lamne kuno Somaliland ni saaki tifin nugan central bakka jaani wali qabani kuno akasitti isa lubu teenya no yagu jirani wanta na taati echa isina ka mootummaa biftani lugachitan kabna ne bama garatan ne balla nagarelam mitata nagarelam Mangis Ismail waqootigii ugu horeeyay ee soo gaaray Somaliland tani intii ay rabshaduhu ka bilaabmeen magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mukhtaar Ibrahim Hon Cable TV gobolka Gabiley